saddex saxaabi ayaa guryihii nebiga tegey markaasay waraysteen maxaa camal uu nebigu qaban jiray markaasaa loo sheegay waabay la yaraatay intii nebi maxamed haddana si kale ay u fakereen waxay yidhaahdeen war nebi maxamed isaga ilaahay baa dembigiisii hore iyo kiisii dambaba dhaafay isagu daa walba dembi ma lahayn inagu dee waa dambaabnaaye mar haddaynu dambaabno waa logic ba la cayaaraya mar haddaynu dambaabno dee intii nebi maxamed waa inaynu ka badinaa isagu ma dambaabin intaana uu sameeyey haddaba inaga dambaa inoo dheere inagu waa inaynu ka badinaa maxay intii uu samayn jiray oo maxaynu samayn mid baa dabeete wuxuu yidhi isaga ilaahay dembigiisii hor iyo kiisii dambaba uu dhaafay inaga waxba garan mayne anigu habeenba seexan maayo waan taagnaanun buu yidhi salaad un baan ku jiri kii kale wuxuu yidhi aniguna cunaba waan iska dhaaf waan soomanaan soonun baan wadi midi salaadun baan wadi buu leeyahy midina wuxuu leeyahy maxay soonun baan wadi midina wuxuu yidhi war dumarkan iyo caruurtan iyo waa waxaa diintaba dadka ka mashquuliye guur naageed baa anigu waan dhaafi buu yidhi zaahid baan iska noqon haweenintu ka dheeraado cibaado unu banbaxa weeyaan dabeetana nabigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam nebigu nimankiiba u yeedhay wuxuu ku yihi antum aladiina qultum kada wakada wakada war ma idinkaa nimankii waxaa sheegay ma idinkaa sidaa iyo sidaa yidhi haabay yidhahdeen wuxuu ku yihi markaa ama wallah inii la akhshaakum lilahi wa atqaakum lah ilaahay baan ku dhaartee buu yihi anigaa ilaahay idinku alla ka cabsi badan idinkuna taqwo badan alkhashya iyo wataqwa anaa idinku alla ka cabsi badan oo idinku dhowrsanaan badan naar wax lagaga dhowrsado anaa idinku badan buu nebigu leeyahy riwaayadda imaamu axmedna waxay tilmaamaysaa wallahi inii la aclamukum billaahi anaa alla idinku cilmi badan wa atqaakum lahu qalba idan labada riwaayadoodba taqwo way sheegeen ee midna cilmay sheegtay midna khashyay sheegtay laakiin khashyad iyo cilmiguna waa wada socdaan oo ilaahay baa qur-aanka ku yidhi inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaau alle wuxuun baaba cabsida dhabta ka cabsada kuwa maxay ilaahay aqoonta u leh dee nin ilaahay garanayunbaa ilaahay ka baqa nimaan rabbi iyo weynidiisa iyo cadaabkiisa iyo naartiisaba garanayni ama se ogeyni dee ma cabsado laakiin ninka rabbi og iyo awoodiisa wuu cabsan saas daraaddeed buu wuxuu nebigu ku leeyay war anaa ilaahay idinku aqoon badan idinku khashyo badan idinku cabsi badan idinku dhowrsanaan badan haddana buu nebigu yidhi anigu waan soomaa waanan afuraa waan seexdaa waanan tukadaa dumarkana waan guursadaa war ninkii jidkayga ka weecdow aniga igama mid tihid buu nebigu leeyay faman ragiba can sunnatii falaysa mini aniga wadadaydii ma haysid weeyaan xadiidkan maxaan u keenay waxaan u keenay istiqaamadu inaanay macnaheedu ahayn wax cusub inaynu iska bilbilowno inu isnahda cibaadada badi laakiin ariiqii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku badi dadka badhna kuwani waa kuwii guluwiga ku dhacay dadka badhna cagsigay ku dhacaan dadka badhba haddaad tidhahdo war ilaahay waa gafuuru raxiim la soo taagay in sha allah ilaahay de waa gafuuru raxiim waxay u badantay dadku intuu wuxuu doono iska sameeyo wuxuu kale de inagu muslimiin baynu nahay leen garantii buu iska sitaa ah inaanu isagoo cadaab galaynin inagu leen muslim baynu nahay ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramay qisas tiro badan yahuud baa ilaahay ka warramay waqatacnaahum umama minhum asaalixuun wa minhum waa qaybinay baa la yidhi nimankii yahuudeed markay dembiga galeen waa googoynay dhulka lagu firdhiyey laakiin waxaa ka mida baa ilaahay tilmaamay weli dad saalixiina laakiin haddana ilaahay wuxuu sheegay yuhuudda noocii dambe maxaa ilaahay yuhuud inoogaga warramaya ee qur-aanku waxaan oo dhan uga sheegaya waxaa la rabaa in laynoo tilmaamo inaanu ahayn waxa sheegasho ah inay tahay acmaal annagaa ah abnaa-ullaahi wa axibaa-u bay sheegteen annagaa 40 casho qurun baaba nala cadaaba inta kale nala cadaabi maayay sheegteen sheegasho inaanu arrinku ahayn qur-aanku wax kaloo laynoo tilmaamay nimanka yuhuudeed haddii dee abtirsiin tahay haddaynaan cidi ka abtirsiin fiicnayn soo ma ogidin waa ilmo nebi israa'iil waa nebi yacquub
nebi yacquubna waa ayo wayna nebi isxaaq nebi isxaaqna waa ayo wayna nebi ibraahim saddex nebi cid ku abtirsata waynu garayna iyagaa jooga carabi laba nebi bay ku abtirsataa soo maaha nebi ismaaciil iyo nebi ibraahim iyaguse waxay ku abtirsadaan maxay saddex nebi haddii markaa nebi iyo rasuul baan galaa ay arrinku tahay yuhuud baa ku guulaysan lahay laakiin ilaahay muxuu tilmaamay fakhalafa min bacdihim khalfun kuwii hore ee fiicnaa qaar baa gadaal maray baa ilaahay yihi khalfun duul xun baa gadaal maray duulkan maxaa lagu ceebeynaya ilaahay wuxuu yihi warisu lkitaaba kitaabka way dhaxleen kitaabka waxa dhaxalka loo heliyo waxa dhididka lagu helaa weligeedba waa kala nooc